مجاهدين تقرب استاغ إيضا كعسوا بيساني. قال الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هاكودك مننا هذا الله بينته يبير جلعسك فرماجيك وحديثه وما اسم دمان عملada gaaladu maxaa yeelay danta gaaladu waa mid shaqaaluhu ama farmaajo ha noqdo ama xasan ha ahaado danta gaaladuna waa dhibaataynta islaamka iyo muslimiinta gaalada waan saaraya oo idinku beerdulucsanayo soo kuwii dharaar cad isagoo ra'iisul wasaare sheeganaya dalka ka saaray maaha maxaa u soo kordhay soo kuwa maalin walba uu leeyahay walaalaheen way hanoo joogaan soo iyaga maahan haddaba muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda ku nool geeska Afrika ee muslimiinta waxaan leenahay cid maslaxadiina ku maqan ma jirto aan ahayn mujaahidiinta idinku yeeraya ku dhaqanka shariicada raxmaanka maxaa yeelay Allah oo laga amar qaato ay ku jirtaa barwaqada adduunyo tan aakhiraba qaal Allah tabaaraka wa ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara وقد خلقكم أدوارا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا دردارك سدحاد وعن قلاد دارمينا والدين أي علمه ذو كبيرين صفك عدوه إن علمه ذو كلاد ذالان سيدا يقبت بعد اللهايين خسارة الدنيا مد آخره كنسو صاران صفك عدوه انت يسر لكل منين wixii ay la kulmeen kuwa badan oo safka cadawga hore u biiriyay mana u malaynayo inuu jiro waalid jecel in ilmihiisu gaala ku garab dhintaan qaala Allah tabaaraka wa ta'ala yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha an-naasu wal-hijaaratu 'alayhaa malaa'ikatun ghilaadun shidaadun laa ya'suuna Allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun mujaahidiintana waxaan kula dardaarmaynaa inay wanaajiyaan ciddii Allah u tooba keenta oo ka mida kuwa murtadiinta ah ayna baraan wixii Allah subxaanahu wa ta'aala uu baray oo xigmo iyo iimaan ah ama ciddii ku madax adeegta waxa ay ku jiraan ee gaalnimada iyo baadilnimada ah waxaa noo dhexeeya waa seefta iyo waranka ilaa Allah subxaanahu wa ta'aala uu naga kala xugminayo qaala Allah tabaaraka wa ta'aala waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lillaah fain intahuu faina allaha bimaa yacmaluuna basiir وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ee farmaajo calanka u sido inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horeeyay laba mid ayaadna noqon doontaan insha Allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka bedel qaadato idinkoo dulaysan sidii kuwii idinka horeeyay mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladay soo dirsatayna waxaan ku leenahay ama cabdullaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xirira ashqaas ee waxay ku xiran tahay mabaadii مبدأنا واسده والله سبحانه وتعالى نقو أمري قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذلك نوال تقبح الدونتان idinkoo dulaysan kuna khasaaray wixii hanti iyo nafba idinkaga baxay dadkii lahaa ayaana u hari doona diinta Allah ayaana lagu dhaqi doonaa insha Allah ama jeclaada ama naca oo karaasada
قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كما قبضه مجاهدين وحان كلا دارمينا إنay sabraan gaalada la sabartamaan asbaabta nasrigana ay ku dadaalaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu allaha lacalakum tuflixuun waafajinta uu waafajiyey mujaahidiinta in ay runtii maxay ahaday cadowga dhabarka ay jabshaan oo waxaa weeye beentii iyo khiyaanadii iyo kedbigii ay isku qancinayeen oo ay isu sheegayeen inay waddanka qabsadeen xaraka shabaab mujaahidiin ay waddanka isaga baxday inay maanta ay tahay sadar muuqda su'aal ka dhan oo waxaa weeye inaan la isweydiinayn maanta kadib xaraka shabaab mujaahidiin ma baxday mise waa joogtaa inay joogto nambar 4 insha allahu tacaala marka sidaasoo kaleeto waxaan u mahad celinaynaa guutadii istishaadiyiinta halka maxay ahaday gaalada maxay ahaday ku samaysay dhawarka ka jabisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan saan ku nahay xaraka shabaab mujaahidiin jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo wanaagaas iyo khayrka islaamka u samayseen iyo cadowga aad naafayseen sidoo kaleeto waxaan ilaahay jalla wacala aan uga baryaynaa inuu shahaadadiisii ka aqbalo walaalkay istishaadiyadaas galay oo la dhaho bashaar cabdullaahi nuur oo ka mid ahaa raggii maxay ahaday dhallinyarada ahaa ee muqdisho wax ku bartay waxa weeye reer muqdisho ahaa oo ilaahay jalla wacala maanta uu qadaray inuu cadowga maxay dhabarka jibiyo asbaabna ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigay waxaan ilaahay jalla wacala uga baryaynaa in shahaadadiisa ilaahay ka aqbalo in ilaahay jalla wacala fardows al-aclaa uu geeyo cadowga iyo asagana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa uu baabi'iyey isaguna inaysan naar ku kulmi doonin maxaa yeelay kaafir iyo ninkii dilaahay naar kuma kulmaan ilaahayna jalla wacala waxaan ka weeye inaan la isweydiinayn maanta kadib xaraka shabaab mujaahidiin ma baxday mise waa joogtaa inay joogto nambar 4 insha allahu tacaala marka sidaasoo kaleeto waxaan u mahad celinaynaa guutadii istishaadiyiinta halka maxay ahaday gaalada maxay ahaday ku samaysay dhawarka ka jabisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan saan ku nahay xaraka shabaab mujaahidiin jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo wanaagaas iyo khayrka islaamka u samayseen iyo cadowga aad naafayseen in allaha bima yacmaluuna basiir wain tawallow faclamuu ana allaha mawlaakum nicma almawlaa wa nicma annasiir وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah ee farmaajo calanka u sido inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dullaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladay soo dirsatayna waxaan ku leenahay ama cabdulaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna ujeeddada dagaalkeennuna kuma xirira ashkaas ee waxay ku xiran tahay mabaadii mabda'eenuna waa sida uu allah subxaanahu wa tacaala nagu amray qaala allahu tabaaraka wa tacaala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذلك waa isaga bixi doontaan idinkoo dullaysan kuna khasaaray wixii hanti iyo nafba idinkaga baxay dadkii lahaa ayaana u hari doona diinta allah ayaana lagu dhaqi doonaa insha allahu ama jeclaada ama naca oo karaasada qaala allahu tabaaraka wa tacaala huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun gabagabada mujaahidiinta waxaan kula dardaarmaynaa inay sabraan gaalada la sabartamaan asbaabta nasrigana ay ku dadaalaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أفريكانتا قار كميدا وحا صور الماشا كورسنا إن الله جل وعلا وكهلاغي waxa way baanti iyo khiyaanada iyo kadbiga isku qancinayeen oo isu sheegayeen wadanka qabsadeen xarakada shal mujaahidiin ay wadanka isaga baxday inay maanta ay tahay sadar muuqda su'aal ka dhan oo waxa weeye in la isweydiin maanta kadib xarakada shal mujaahidiin ma baxday mise waa joogtaa inay joogto number 4 insha Allah ta'ala marka sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa guutadii istishaadiyiinta halka maxay gaalada maxay ku samaysay dhawarka ka jabisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan saan ku nahay xarakada shal mujaahidiin jazaakumullahu khayral jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo wanaagaas iyo khayrka islaamka u samayseen iyo cadawga aad naafayseen sidoo kale waxaan ilaahi jalla wa ala aan uga baryaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo walaalka istishaadiyadaas galay oo la dhaho Bashaar Cabdullaahi Nuur oo kamid ahaa ragii maxay haday dhalinyarada ahaa ee Muqdisho wax ku bartay waxa weeye reer Muqdisho ahaa oo ilaahay jalla wa ala maanta uu qadaray inuu cadawga uu maxay dhabarka jabiyo asbaabna ilaahay subhanahu wa ta'ala uga dhigay waxaan ilaahay jalla wa ala uga baryaynaa in shahaadadiisa ka aqbalo in ilaahay jalla wa ala firdaws al-a'la uu geeyo cadawga iyo asagana insha Allah aan uga baryaynaa inuu shahaadada maxay ku samaysay dhawarka ka jabisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan saan ku nahay xarakada shal mujaahidiin jazaakumullahu khayral jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo wanaagaas iyo khayrka islaamka u samayseen iyo cadawga aad naafayseen sidoo kale waxaan ilaahay jalla wa ala aan uga baryaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo walaalka istishaadiyadaas galay oo la dhaho Bashaar Cabdullaahi Nuur oo kamid ahaa ragii maxay haday dhalinyarada ahaa ee Muqdisho wax ku bartay waxa weeye reer Muqdisho ahaa oo ilaahay jalla wa ala maanta uu qadaray inuu cadawga uu maxay dhabarka jabiyo asbaabna ilaahay subhanahu wa ta'ala uga dhigay waxaan لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم هموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ee farmaajo calanka u sido inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey laba mid ayaadna noqon doontaan insha Allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka bedel qaadato idinkoo dulaysan sidii kuwii idinka horreeyey mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin gaaladay soo dirsatayna waxaan ku leenahay ama Cabdullaahi keena ama Shariif keena ama Xasan keena ama Farmaajo ama Faarax ama Jaamac waxba nooma kala duwna ujeedada dagaalkeennuna kuma xirra ashqaas ee waxay ku xiran tahay mabaadi mabda'una waa sida Allah subhanahu wa ta'ala nagu amray qaal Allah tabaaraka wa ta'ala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ذلك لو تقبح الدونتان إذن كو دوليسان كنا خساري وحي هانتي النف بإذن كقبحي dadkii laha ayaana u hari doona diinta Allah ayaana lagu dhaqi doona insha Allah ama jaclaada ama naca oo karaasada Allah tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al mushrikuun gabagabada mujaahidiinta waxaan kula dardaarmaynaa inay sabraan gaalada la sabartamaan asbaabta nasrigana ay ku dadaalaan Allah tabaaraka wa ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فانتي يا خيانتي يا كذبي اسكو قنعنايين oo isu sheegayeen wadanka qabsadeen xarakada shal mujaahidiin ay wadanka isaga baxday inay maanta ay tahay sadar muuqda su'aal ka dhan oo waxa weeye in la isweydiin maanta kadib xarakada shal mujaahidiin ma baxday mise waa joogtaa inay joogto number 4 insha Allah ta'ala marka sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa guutadii istishaadiyiinta halka maxay gaalada maxay ku samaysay dhawarka ka jabisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan san kuna xarakada shal mujaahidiin jazaakumullahu khayral jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo wanaagaas iyo khayrka islaamka u samayseen iyo cadawga aad naafayseen sidoo kale waxaan ilaahi jalla wa ala aan uga baryaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo walaalka istishaadiyadaas galay oo la dhaho Bashaar Abdullaahi Nuur oo kamid ahaa ragii maxay haday dhalinyarada ahaa ee Muqdisho wax ku bartay waxa weeye reer Muqdisho ahaa oo ilaahay jalla wa ala maanta uu qadaray inuu cadaga maxay dhabarka jabiyo asbaabna ilaahay subhanahu wa ta'ala uga dhigay waxaan ilaahay jalla wa ala uga baryaynaa in shahaadadiisa ka aqbalo in ilaahay jalla wa ala firdaws al-a'la uu geeyo cadawga iyo asagana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa uu baabiyay isaguna inaysan naar ku kulmi doonin maxaa yeelay kaafir iyo ninkii dilaahay naar kuma kulmaan ilaahay jalla wa ala waxaan ka baryaynaa acmaasheen oo dhan inuu ikhlaas iyo nooga dhigo isaga dartii wajigiisa waxaan ula jeedno ilaahay jalla wa ala ayaan mahad celinaynaa cadawguna insha Allah waa si baabiyi doona ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhameystiro wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in dardaaranka saddexaad waxaan kula dardaarmaynaa Soomaaliyeed waad qalban
لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أدوارا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دردارك سدحاد وعن قلاد دردارمينا waalidiinta ay ilmahoodu ku biireen safka cadowga inay ilmahooda kula dadaalaan sida ay uga badbaadin lahaayeen khasaare adduunyo mid aakhiro kana soo saaraan safka cadowga intaysan la kulminin wixii ay la kulmeen kuwo badan oo safka cadowga hore u biiriyey mana u malaynayo inuu jiro waalid jecel in ilmihiisu gaalo ku garab dhintaan. qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مجاهدين تنا وحن كل دارمنا إني وناجيان عدي الله أتوبك أنت أو كمذا كون مرتدين تا أين براوحي الله سبحانه وتعالى وبري أو حكمة إيمانه. أما عدي كون مدح عليكتا وحاي كجيران قال لماذا يا بعد لماذا وحنا نحياه وسيفته يا ورنك إلا الله سبحانه وتعالى وناكل حكمنا أيه. قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. waxaan u sheegaynaa kooxda murtadiinta ah ee farmaajo calanka u sido inaad mari doontaan dariiqii ay mareen kuwii idinka horreeyey. laba mid ayaadna noqon doontaan insha allah inaad ku baxdaan gacanta muslimiinta ama ay gaaladu idinka beddel qaadato idinkoo dullaysan sidii kuwii idinka horreeyey. mabda'a gaalada kama hirgelin doontaan dalkan ay muslimiintu ku nool yihiin. gaaladay soo dirsatayna waxaan ku leenahay ama cabdulaahi keena ama shariif keena ama xasan keena ama farmaajo ama faarax ama jaamac waxba nooma kala duwna. ujeeddada dagaalkeennuna kuma xirira ashkaas ee waxay ku xiran tahay mabaadii. mabda'eenuna waa sida uu allah subxaanah wa tacaala nagu amray. qaala allahu tabaaraka wa tacaala وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. iyo khiyaanada iyo kadbiga isku qancinayeen oo isu sheegayeen wadanka qabsadeen xarakada shacab mujaahidiin ay wadanka isaga baxday inay maanta ay tahay sadar muuqda su'aal ka dhan oo waxa weeye in la isweydiin maanta kadib xarakada shacab mujaahidiin ma baxday mise waa joogtaa inay joogto number 4 insha Allah ta'ala. marka sidaas oo kale waxaan u mahad celinaynaa guutadii istishaadiyiinta halka maxay gaalada maxay ku samaysay dhawarka ka jabisay qaasimada u geysatay iyagana waxaan leenahay dhammaan guud ahaan san kuna xarakada shacab mujaahidiin jazaakumullahu khayral jazaa. ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka abaal mariyo wanaagaas iyo khayrka islaamka u samayseen iyo cadawga aad فايسين وsidoo kale waxaan ilaahay jalla wa ala aan uga baryaynaa inuu shahaadadiisa ka aqbalo walaalka istishaadiyadaas galay oo la dhaho Bashaar Abdullaahi Nuur oo kamid ahaa ragii maxay
dhalinyarada ahaa ee muqdisho wax ku bartay ee waxa weeye reer muqdisho ahaa oo ilaahay jalla wa ala maanta uu qadaray inuu cadaga maxay dhabarka jibiyo asbaabna ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga dhigay waxaan ilaahay jalla wa ala uga baryeynaa in shahaadadiisa ka aqbalo in ilaahay jalla wa ala fardoos al-a'la uu geeyo cadawga iyo asagana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa uu baabiyo isaguna inaysan naar ku kulmi doonin maxaa yeelay kaafir iyo ninkii dilaahay naar kuma kulmaan ilaahay jalla wa ala waxaan ka baryeynaa acmaasheen oo dhan inuu ikhlaas iyo nooga dhigo isaga dartii wajigiisa waxaan ula jeedno ilaahay jalla wa ala ayaan mahad celinaynaa cadawgana insha Allah waa si baabiyo doona ilaahayna waxaan ka baryeynaa inuu dhameystiro wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajma'in والمدافع من أسلحة حرادة الجرمال كهالك اللو يغانو سنة كلابكني يتبنكي أي قصف بالطائرات العسكرية الأمريكية والمدافع من أسلحة القوات البرية الأثوبية سنة كلابكني يتبنكي أيان مركو كلاني حرادة الجرمال كهالك اللو يغانو دسموين دينعا إزغيث كيف كحالان كودو مقالة المقدشو iyadoo goob galabgaab ahna ay ahayd xilliga aanu kulmaynay qoraxduna ay sii dhacaysay aniga waxaan ka socday mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho isagana waxa uu ka socday telefishinka Al-Jazeera qaybta afka Carabiga wax ku tabiya waxaana kulmiyay xilligaas shir jaraa'id uu qabanayay afayeenka guud ee ururka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ka xasan ahaan aqoon badan iskuma lahayn marka laga reebo in aan warbixinadiisa telefishinka Al-Jazeera aan kala socday balse shirkaasi saxaafadeed waxa uu ahaa mid uu kaga hadlayay afayeenka Al-Shabaab weerar dhacay galabtaas habeenkeedii oo qaraxyo ismiidaamin ah lagu dilay shacab maqaaxi ka daawanaya ciyaartii finaalka koobkii adduunka ee South Africa lagu qabtay balse dadka la laayay ee maqaaxida lagu qarxiyay waxay ku sugnaayeen magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda
inta aanu goobta joognay ayaa waxa uu fahad yaasiin diray si kooban oo telefishinka aljasiira uu ugu diray in afhayeenka al-shabaab uu shaaciyey sheegashada mas-uuliyadda in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkii magaalada kambaala ka dhacay saacada ka hor wakhtigaas oo ahayd 2010kii weji ka weji fahad yaasiin galabtaas ayaa iigu horraysay iiguna dambaysay inaannu kulanno waxaana wakhti ku dhow markaas uu ka fadhiistay sida la ii sheegay shaqada telefishinka aljasiira uu wakiil wareed uga ahaa qaybta carabiga koonfurta soomaaliya بل جاء من سفن عسكرية كانت قريبة من السواحل الصومالية على حد قول بعض العسكريين. فهد ياسين، الجزيرة، جنوب الصومال. wixii xilligaas ka dambeeyey fahad yaasiin waxaa la sheegay inuu u xub siibtay dhinaca siyaasadda soomaaliya oo xil ka raadinayey isagoo sabab alla uga dhigay in doorashadii xasan sheekh maxamuud 2012kii guushii uu soo hooyey isaga uu ka dambeeyey maadaama uu ahaa hogaamiyaha madaxa ololihii doorasho ee xasan sheekh uu galay balse xasan sheekh uguma abaal gudin sida la sheegay fahad yaasiin wixii uu ka doonayey sidoo kale farmaajo oo noqday madaxweynaha Soomaaliya 8 bishii Febraayo sanadkan 2017 ayaa fahad yaasiin ahaa hogaamiyihii dhinaca ololaha doorashada ee Maxamed Farmaajo balse waxa ay keentay isqabqabsi badan markii farmaajo uu yimid oo uu doonayay in fahad yaasiin uu noqdo xubin sare iyadoo dawladda qadarna ay gadaal ka taagnayd taageerada uu fahad doonayay waxa ay xitaa isqabteen nin ay aad isugu dhawaayeen farmaajo ololaha doorashadana ay ka wada mid ahaayeen oo la yiraahdo Yuusuf Jaalle Yuusuf Cabdulle Yuusuf Jaalle ayaa hore waxa uu soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe markii uu gudoomiyaha ka ahaa Cabdi Jiino Calasow waxaase dowlad goboleedka Puntland ayaa ka mid ah ee dhinaca garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho isqabqabsi badan kadib fahad yaasiin ayaa kaga guulaystay in Yuusuf Jaalle ka hor istaago gudoomiyaha gobolka Banaadir uu doonayay waxaase saaxiib dhow ay ahaayeen Thaabit Cabdi oo keentay in markii dambe farmaajo uu ku qasbanaaday in duqa Muqdisho ka dhigo Thaabit Cabdi Maxamed qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fahad yaasiin guddiisa loogu magacaabay xil sare kaas oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya magacaabista fahad yaasiin waxay ka dambeysay baa la yiri kadib markii dawladda Soomaaliya ay qadar u bandhigtay mas'uuliyiinteeda inay wada hadal isugu keento dawladda iyo al-shabaab madaxweyne Farmaajo oo dhawaan tagay qadar markii labaad ayaa waxa uu sheegay in ay xujo ama shuruud kala kulmeen dawladda qadar taasoo ahayd haddii wada hadal al-shabaab dawladda la isugu keenayo iyaguna ay wataan hal arrin oo ah in fahad yaasiin xaaji daahir laga dhigo madaxweynaha shakhsiga dhinaca la taliyaha u qaabilsanaanaya ammaanka. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم. dawladda qadar waxa ay ballan qaaday in al-shabaab ay markaas kadib wada hadal ay dawladda ugu keenayso xitaa haddii ay diidaan mas'uuliyiinta ama hoggaanka al-shabaab ay sheegeen in gogasha ay keenayaan saraakiisha qaar ee shabaabka oo ay dawladda qadar isku dhow yihiin wada hadalkana ay ka dhaadhicin karaan fahad yaasiin xaaji daahir waxa uu bedelayaa xuseen macalin maxamuud oo horey madaxweynaha uu ugu magacaabay bilo kadib markii la doortay farmaajo la taliyaha amniga ee madaxweynaha ku darso oo xuseen macalin waxa uu ka soo galay dhinaca xilkaas inuu qabto sawjadda u dhaxda madaxweyne farmaajo oo ay isku hayb yihiin sidaas oo ay taana waxa adkaan doonta in la qanciyo oo xilkan mar kale inuu ka dego ay xuseen ku adkaan doonto sida la leeyahay. حقيقة هناك أطراف مسلحة في داخل الصومال وسؤال تأويل